الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أخوتي في العقيدة، قبيلة أما التعصب القبلي يرادك وكلي بربرك ومضها وحن سلايا هي وتجربة معاشة qofku waxaanu la noolaynba taariikhdeeda looga waramaa, waxaanu arag ayaa loo sheegaa taariikhdeedu sida waxaasi u dhaceen ama ay wax u yeelaan. laakiin qofka Soomaaliga ee maanta nool ee 30 sanadeed ee ugu dambeeyay joogay ama qayb ka mid ah joogay ma islihi war badan baa ugu dhiman tacasubka qabaliga ah sida uu ummadu burburiyo. waayo waa waaqacan ku nool lahay oo natiijadiisi aan aragnay. ummadda waxaa la yidhaahdaa waa dad wadaaga wax badan. ummadnimada ahi waa dad mabaadi culya iyo caqaa'id wadaaga, ama caqaa'idu saxiix ha noqoto ama hayru saxiix ha noqoto. ideology mideeyey bay haystaan oo isu keenay dadka kan. waa dad qaanuun mideeyey haysta, ama qaanuun sharci oo saxiixa ha noqdo ama mid wadciyo bini aadam uu samaystay ha ahaado. waa dad qiyaado midaysan leh, hoggaan midaysan leh. waa dad wax badanay markaa ka dhexeeyaan. ummaddu markay intaa weydo ama wax kastoo intaa waxyeelaya, waxaan odhan karaa waa canaasirta keenta in bulshadu burburto. nimanka siyaasiyiintii waxa koowaad ay ku dadaalaan waxa weeyaan dadka see homogeneous group looga dhigi karaa, see bulshada afkaarteeda la isugu dhaweyn karaa, see la isu raacin karaa, say wax wada u arki kartaa. matalan iminka wadanadan dimuqraasiga maqlaysaan, dimuqraadiyaddu waa laba qaybood. qaybi waa aalad qaaba oo la adeegsado oo ah maalan in la isdoorto, in baarlamaana la samaysto, in dowladda la kala saaro oo qayba laga dhigo, qayb tashriici dejisa iyo qayb tanfiid samaysa iyo qayb qaadi noqon. waa ijraa'aad, laakiin ijraa'aadkan philosophy ka dambeeyo mideeyey buu leeyahy. democracy intaanu ase political usoo bixin wuxuu soo baxay enlightenment theory-gii baa yimi. dadkan in muctaqad laga dhaadhiciyo, philosophy bay wada qaateen, kaasay ku qanceen. dabeetana waxay garteen say u kala baxaan ay ugu heshiin karaan. innaga xataa haddaad aaladda tan qaado, islaamnimo dhaafay, haddaad aaladan qaado istiraado dadkan ha loo ekaysiyo siday u egyihiin, mabaadi'i kama horeyso. axsaabteennu markaaba reer hebel unbay isu bedelaysaa, ilaa mabda uu ku jiro xisbigani ma jire. axsaabteenna waxay ku kala gedisan yihiin. marka la yidhaahdo waddankii axsaab badan baa laga sameeyey, one man one vote baa laga sameeyey, caynkan baa laga sameeyey, xal maaha. waayo xataa intan gaalku haysta kuma gaadhaysid. sababtu waa maxay? adigu ideology bulshadaadu laga dhaadhiciyo axsaabtana sidaa ma jirto. axsaabtaasi waxay ku kala gedisantahay kaana nin reer hebel inuu madax kayo hebel hebel la yidhaha, kaana nin reer hebeloo waxaanay sheegayaana kale waa iska hadal. marka ay rabaan cod siduu ku helaya waa inuu reerihii shiriyaa. haddaynu reer hebel lahay inagu xisbigan baynu leenahay, kan baynu leenahay, intan baynu qaadanaynaa, kan baynu qaadanaynaa. marka reer hebel oo dhamina xisbigan buu marayaa, reer hebella xisbigan buu marayaa. saas idan xataa aaladoodu kama shaqayn karto. walidalik كأمة الصومالية مركينو نهي
qabiilku ideology buu leeyahay kooban oo ah unsur akhaaka dhaaliman aw madluuma tol intaasaa lagu yihi tolnimadu wax fiican way leedahay oo sharcigu ina faray oo ah in laysu gargaaro xaqa laysu sheego allahuma salli calaa maxamed layskaalmeeyo takaaful ijtimaaciya reerku ninkii guursanaya la kaalmeeyo ninkii dayn lagu yeesho haddii wax laga bixin kara laga bixiyo qayb fiican way leedahay qabiil markaynu idhaahno laakiin tacasubka qabaliga ahi waa reerkayga bes garya gardarraba reerka xaq iyo baadilba reerka taa macnaheed waxa weeyaan dee ummad ma noqon kartid oo sababta keentay markaasi inaynu burburo sababta keentay baan odhan karaa marka imika la yidhahdo dowlad soomaaliyeed ha la sameeyo dee dadku dhibtii wuu wada arko wuu aqbalayaa arrin ashiriyo ha la isugu yimaado dad badan baa isu imanaya haddana dowlad noqon mayso maxaa xaggay wax iska dhaafsan yihin يعني 15 shir 17 shir bay Soomaali gashay mid kasta waxba lagu soo dhisay wixii haddana socon maayo waayo de marka hore in waxaynu sugaynaa yaa meesha sariya inta xoogan qabsanaya nin waliba marka hore wuxuu silay lagama xoog badna ku day in ay idinku heshaan madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha ama wasiirada ama intan laakiin markay intii heshay soo baxdo intaan helin waxay leedahay cagaa qaba hadaba tan iyo inuu ku kicin reer walba xoogsanaya haday tan qabsatay yay talaabsanin waa in la dumiyaa inta markaa hungurigu inugu jirana waynu midaysanay ila ideology kuma midaysan waxay ku midaysan noo rabnaa dawladdu waa xoog dawladnimadu waa askar iyo ciidan waa system waa dhaqaale iyo cashuur iyo wax la ururinayo waa kayaan jira reerka kayaanka qabsada wuxuu rabaa reeraha kale inuu dhulka la simo to askarta helo ka hubbato hadduu isagu dhaqaale helo ka dhaqaale bato hadduu jaamacada iyo meelaha inta caruurtiisa u diro xataa hadduu intaa ka simo waxay u arkayaan faankii in laga helay ila reernimadu waa faane ana ka aaba fiican ku maamuli jiray weeyaan haddii aan markayga ku maamuli kari waayo waa inaan maamulkaaga ridaa fakhrigii baan waayaya annaga ra'iisul wasaaraha cid ba wax ma siiyo reerkaba kama tirsana laakiin mujarrad inuu nin reer hebel yahay ayaa faanka igu filan haddaan markaa faanka waayo waa inaan faankiina dumiyaa ama waa inaan markayga ra'iisul wasaare noqdo ama caynkan xal waxaynu ka dhiganay oo la yidhi bal muu dadkani qabiil ka teg waayo qabiilka loogu qaybiyo qabiil miyuu ku qaybsamaysaa hadde qabiilku wuu sii jajabay oo sii dumaya idan ayuha alaxiba warka ah qabiilku suu wax u dumiyaa waa war practical aynu soo aragnay waxaa ka habboon inaan malaa'in badan isweydiino war saynu uga baxnaa saynu uga bixi karnaa dadka badh baa leh qabaa'ilkaba ha la masaxo waxaana la tirtiro ma tirtirmayso qabiilnimadu inuu ninku reer ka tirsan iyo ku abtirsadaa ceeb maaha ilaahay wuxuu inoo tilmaamay shucuub iyo qabaa'il aynu nahay laakiin maxaa laynoogu tilmaamay litacaarafu inaa isku garataan waa macrifa qabiilku wuxuu inoo joogaa halka galada tan bershuun nambarku uu joogo marka lagu weydiiyo 9 nambar baad taxaysaa anna 9 oday un baan taxayaa si lay garto 9 nambar ma haysto laakiin waxaa inay hebel 9 oday baa sheegaya markaas lay garanaya in lay gartaa ma xumo markaa in lay garto oo dadku nasab iyo sihir bay yeesho oo meeshan ka soo jeeda la gartaa ceeb maaha لكن مشكلة وحويان ايديولوجيga qabiilka ma bedeli karnaa nabi maxamed alayhi salatu wasalaam qabaa'il kii ma tirtirin quraysh sidii bay quraysh u ahay aws iyo khasraj sidii bay aws iyo khasraj u ahaayeen ghatafaan sidii bay ghatafaan u ahay mudar iyo rabiic sidii bay u ahaayeen qaxtaaniintii yaman sidii bay ahaayeen qaysiintii shaam sidii bay ahaayeen qabiil waliba sidii buu u jiray wuxuu nabigu bedelay alayhi salatu wasalaam ideologigii qabiilku haystay أفكارته الرميسنا waxay in la isxaqiro oo reerka kale la yeeso
quraan iyo sunno badan baa soo degtoo tilmaamaya in la isyasaa inaanay bannaanayn dadku inuu asal qura wada leeyahay usro qurana ka wada yimi dhoobana laga wada abuuray aab iyo hooyo qurana wada dhaleen sidaana ku kala fiicnayn mabaadi'doodii baa la saxay waxay rumaysnaayeen unsur akhaaka daaliman aw madluuma walaalkaa gar iyo gardarraba u hiili weedha lafteedii buu nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam unsur akhaaka daaliman aw madluuma weedha tani way yaabeen saxaabadii iyo dee ma wixii horaa lagu noqday waa waxay ka soo baxeen wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadduu xaq u taaganyana u hiili saad qof kastoo muslima ugu hiilin lahayd hadduu baatil ku taagan yahayna ka qabo taasaa hiilkiiya ilaa naar baad ka hor joogtaaye tolka ama dunida marka la jebiyo inaad ka celisaabaa hiila oo markuu naarta ku gurmayo inaad kusii daysa maya iyadu maxay tahay tolka haddaad naarta ka celin kari weydo umaad hiilin isagoo baatil wada isagoo cadaab ku gurmaya inaad ku eegtaa waa hiil daro hiilkii nebigu wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam markaa in xaqana loo sheego hadduu xaq u taaganyana lagu taageero waxay dadku sokeeye iyo shisheeye ugu kala ahaayeen inta ay abtirka u kala dhow yihiin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay mid ka sarraysaa inay jirto oo hadday taasi go'do tanna uu go'ayo aasirada bini aadamka waxaa isku xidhaa alwashaa'ij bini aadamka isku xidhaa waa alwalaa walbaraa waa caqiida waa diin baa reerkii kala kaxaysay ideology wixii la rumaysnaabaa reerku ku kala tegey ghaswatu bader gaal iyo muslim baa isdilay baynu nidhi gaal iyo muslimka isdilaya waayo waa rag ilmaadeeraa markuu quraysh 3 nin oo 2 walaaliya inaan ay dhaleen markay soo baxeen ansaar baa u soo baxday waxay idhahdeen ma rabno nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxay weydiiyeen raggii noo dhigmayay soo saar wuxuu soo saaray rag ay maxay kala tirsadaan ragaan wax badan la kala tirsan baa la soo saaray oday qura la wadaago qabiil qura wada yihiin laakiin ideology lagu kala tegay islaamku markaa wuxuu barow qabiilka ku daweeyey qabiilkani waa wicaad dadka ururiye laakiin ideology maaha afkaartii uu dadku rumaysnaa afkaartuu dadku rumaysnaa waxaa laga dhigay inay caqiide noqoto iyo diin inay noqoto al-ukhuwa al-islaamiya qofku mar hadduu muslim yahay inuu kugu leeyahay xuquuqda islaamnimo oo xuquuqda islaamnimo waa maxay an tuxiba liakhiika maa tuxibu linafsik waxaad naftaada la jeceshay inaad walaalkaa la jeceshlaato xuquuqda kugu leeyahay waa an tansura xuquuqda kugu leeyahay waa wanusxi likulli muslim inaad u naseexayso xuquuqda kugu leeyahay waxa weeyaan hadduu baahaya inaad wax siiso haddii la dulminayo inaad ka dhiciso idan mabaadi' buu islaamku baray mabaadi'daasaa waxay keentay inay buuxiso maadaama qabiiluu jiro nawcun maa munaafasaa jiraysa maxaa lagu loolamaya waxaa la bedelay wixii lagu loolamayey waxaa laga dhigay inay ku loolamaan khayrka iyo xaqa ilaahay subxaanahu wa tacaala intuu janno iyo nicmooyin iyo wax ka warramayba wuxuu yidhi wafii dalika falyatanafasi lmutanaafisuun kuwa loolamaya kan ha ku loolamaan dagaalada adag marka la gelaya waxaa la odhan jiray hala garta dhanka ragga ka jabaye kala baxa reer hebelo halkaa ka dagaalgal reer hebelo halkaa ka dagaalgal frontis baa la kala siin jiray reer waliba isagoo ceebta iska ilaalinayo xagga sare gaalada dhanka kale ka mari jiray idan reeruhu tanaafuskoodii waxaa loo bedelay inay khayr ku tanaafusaan inay wanaag ku tanaafusaan loolan inay ku loolamaan laakiin wax khayra waxay ku loolamayeen cid waliba islaamka wuxuu taray intuu taray ee islaamnimada ku soo kordhiyey waxaan odhan karaa si kale haddaanu tilmaamo waxaa loo sameeyey almabaadi' alculya walahdaaf alkubraa qabiilkii yaraa quraysh lo odhan jiray maka joogay ama ansaar ee aws iyo khasraj ah waxay qaateen fikradda inay dunida mas-uuliyadi ka saaran tahay alcaalamu kullu awal wuxuu u arkayay reerkan ku xigay inuu iska celiyo caqligiisu madiino ma dhaafaynin aws waxay lahayd khasraj iska reeb khasrajna aws iska reeb bay ahayd qabla alislaam ama marka kan waxay u arkaan adduunkaba in iyaga mas-uuliyadi ka saaran tahay
ولذلك waxay noqdeen dad ahdaaf kubra meel saro ay ka fakaraan leh ahdaaf kubra markay ka fakareenna waxay noqdeen caalamka oo dhan inay diin gaarsiiyaan around 50 years ay dunida maanta muslimku degan yoo dhan saxaaba furtay inta ugu badan leh dunida maanta muslimku degan inta ugu badan leh saxaaba furtay less than 50 years bay dhan walba uga baxeen يعني waxa loo sameeyay lama oranin lama loolami karo reer hebel lama loolami karo ee waxa la yidhi waxaad ku loolamaysaan waa inuu khayr noqdaa waxay noqotay kuwii shalay la yasayay inay noqdaan muslimiinta dadka ugu magac weyn leh waayo waxa loo tilmaamay dhalasho inaan ugu xuhayna acmaal inay tay taariikhda islaamiga waxa maqashaan nin la yiraahdo maxay مسلم ابن قتيبة بن مسلم الباهلي باهلي وقبيلان قبائل كعربيد لما اجي شري كمده وقبائل وقبيات الماما الى حد وليه هي ايجه هدي لون نسبيه قبيل كان اول هدي ايجه لو يراهdo بيقول باهلي با tahay ايجو وكعي اسو ديدن قبيل كاسي قبيل كي عين كالو تلمامي رجال كي كصوب حي وانا كي فرطي محي المشرق العربي سلام كبري كان قلبيت كان وموسى بن نصير طارق بن زياد الرقاص رقي لمدها هدي بري بالله كعنا خراسان لقى بلا بوحي كده بيرقي فري وقتيبة بن مسلم هن تابعية وباهلية isaga iyo kuwa dhalay iyo aabihi muslimka kale muslim waa ragii Abdullah ibn Zubayr dagaalka la galay waqtigii khilaafadiisa waqtigaas ugu dhintay yani a'maal inuu yahay waxa lagu soo baxaa reer inaanu ahayn baa la baray fakhrigu hadaad faanfaan iyo waxaad ku soo baxdo ilaahay agtiisa laga sheegaba la yiri iyo ma roonin bin aadamku ku sheego iyo in rabbi agtiisa laga magacaabo إذن عدي فان دوني سي waxa loo sheegay meesha faanku jira xaq u yahay عدي raganimo ku jirtay waxa loo sheegay raganimada walaalka inaan lagu adeegsanay meesha lagu adeegsadaa xaq u yahay طاقاتكي ورارku laha waxa la tilmaamay meesha lagu tilmaamayo إذن أيها الإخوة عرب قبل الإسلام waxay soo mareen fitrad ay dunida ugu liiteen iyadoo hareerahooda dawlad xoogan ay ka jireen Bershiya dawlad xoogan baa ka jirtay Romanskana dawlad xoogan baa ka jirtay intan Carabi degtaana waxba kama jirin sababtan wax uga jirina waxay ahayd aqliga hoos u fororsado qabiil intuu noqdo bareerkan yare ku xigun buu aagayun reerka ku xigun buu iska dhicinayay wuxuu buu arkayun reerka inaan marnaba laga bixi karin دريد بن السمة قبل يسمى كمدها وهلانا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشده وقبل دير ولالكي وقبر رديقية دريد بن السمة وأن شاعر فارسو جاهلية إسلام كوسو قاعد يسوق دقو قبوبي ولا السيدو لكن مو إسلامين بله مسلمين تبى غزوة حنين كل شيء isagoo hawaasan qabiilkiisa la socda taladii qabiilkiisu intay diiday Auf ibn Malik intuu diiday ayaa dagaalka la soo galay waxay yiraahdaan nin faris oo macruuf ah boqol dagaal in ka badan buu galay fi jaahiliyati intaba uu guuleystay bay yiraahdaan rag walaala la aha dhamaantood dagaal baa lagu dilay dhamaantood nin walaalkiyo ka weyn Abdullah la yiraahdo bay duulimaad wada qaadeen reer bay xoola ka qaadeen xoolihii markii laga soo qaadayna sidii qabaylka Soomaaliyeed qaar ka mid ah sameeyeen waagii hore ay dagaalada geela qaadi jireen ayuu meel dhaxays kala fadhiistay geelashiya wixii uu soo qaaday Durayd ibn Sima baa la taliyay walaalkii wuxuu yiri war reer hebel weyna soo gaadhayaan meel cidlaana waad fadhiday halkan hayna fadhiisinine xoolahan guriga geysanay soco may waa nasinaya buu yiri cidii meesha inoogu imanaysa hatimaad halkaynu ku nasarayna wala fadhiyaya meesha iyagoo fadhiya ayaa la soo gaadhay dabeetana
انت قمت ايغا لو جوغسداي oo cabdilaahi la dilay oo xoolo dib looga qaaday oo dureed kan la dhaawacay oo isagoo meydnimo looga tagay bay ka tageen kadib buu gabay tirinaya walaalkii rafaa ugu sameeynaya walaalkii buu baroordiiqaya gabayga baroordiiqay ku jirtaa beydka kani gabayga baroordiiqa waxa kamid ah abyaat uu leeyahay wanaag baan idin sheego waa lay diiday laakiin دميان وحكى لها يبي إن الرير هبل وما أنا الرير هبل ما خلاف فكرة يا هلك يكون مردان وما أنا كل مرة يا أبو لي فكرة دواتا حتى وناقة شيء هدين للديدي الرير هبل هلك يكون مردان وما يكون مرة يا بيت تاجناي إذا وحن الذكر وحي الرميسناي بل بدلي والنبي محمد بدلي عليه الصلاة والسلام قبيل يقرن منا ما هو حس قادن كرا وهي الرير كم يشق بصدا وحنو أركينا فان كيونو ينجح لي أما دولة نمدين وبوبيا ما وحين وبوبيا وين إنه دت كان مبادئ جينا وين دت كان أفكار تودا بدلها سيو فكريان وين إنه بدلها مركز بي دعي كرتا إن الدولة نما وحكو طري سما يسنطو قبيلكو دوسي في القمة يوسي يرانيا نبي محمد عليه الصلاة والسلام القرآن كوحين وقلت المامية طائفة دي فرعون يكو حديثي دد بو قميستي لكن محوكو قميستي وقيب قيبي إلهي القرآن كوحو قلت المامي إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة فرعون واكب ريبا إلهي دد كي ميشي تشوغينا كوحو كدقى كوحو markay kooxan noqdeenna kolba koox buu gumaystaa buu nabigu tilmaamaya quraanku sheegaya koox buu kolba gumaystaa kooxda uu gumaysanayo ahkaam adag buu ku xukumaa in caruurtu ragooda la laayo dumarkooda la reebo kooxana wuu soo dhaweeyaa Soomaaliya maanta saasu ma ka jirta gaalada international community la sheegayo iyo gaalada inagu hareeraysan marka la eego kolba reer bay soo yara dhaweeyaan reer bay hub yara siiyaan reer kalena aakhira loo diraawn ka marka muddo la wadana xaga kalun baa la wadaawno reer kalena markii soo adii sabab ka daadaga adii sabab ma inuu soo weydaarana wax badan oo kale isma bedelaya idan wa taftiit wax keena hadii umada la burburiyo ayan kan wax lagu burburinaya ha ahaade waxba ma dhalanayaan idan warku wuxuu ku kooban yahay نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام قبيلتين كادك تين دتك وابا مسلم وتكنيا وحبور رميسي يبود دويي قبيلتين كدقن حن او كدقن ادك او جاهليو ان ديننا هيسنين ايو نبي محمد دويو كدغي دولدي دنيدا ugu xooga badnayd oo kadhigay haday taasi ba dhacday innagana teen wala daweyn karaa waa dad muslimiina oo dhibaato dhex martay oo jira wala daweyn karaa dawadaas waxa u baahan tahay kow inaynu islaax ka dhex raadino bulshada reeraha kan heshiiyaan laba inaynu cadaalad raadino oo cadaaladda dadka deeqda ninku tolaayay wuxuu leeyay wuxuu xaq u lahaa buu waaya cid la dhicisa walla dulminaya dulmiga wuxuu kaansaday marka inuu reer dabada geliyo laakiin hadduu cadaalad helayo hadduu helayo booliis intuu tago xaqiisa u dhicinaya tolaayana ma yidhaahdo cidna uma yeedheen haddaynu markaa dadkan heshiis ka dhex raadino haddaynu cadaalad ka dhex raadino haddaynu mabaadi ku beerno oo diin islaam dib u noolayno haddaynu samayno ahdaaf kubraayo ay ku tanaafusaan waxay ku loolamaan oo weyn aynu u samayno waa wax fudud bale waa wicaal la adeegsan karo khayrka wax u tari kara reernimadu markaasi siday jiilkii saxaabadaba wax ugu tartay ka reer ahaan markay tahay aan tacasubka la soconin ama haddaynu isku dayno inaynu dimuqraadiyad geyno ama waxa kan geyno waxba bedeli mayno Soomaaliya lixdankii markay ka baxday dimuqraadiyad bay qaadatay laakiin dimuqraasigeedii wuxuu isu bedelay doorashooyinkoodii ugu dambeeyay 82 xisbi baa furaa 82 xisbi reerun bay haayeen jilib bolo yaro hoosaba xisbi samaystay waxba isma bedelayaan imikada haddaad axzaabta furto axzaabtu magacyadii reerun baad s iyo wax kale aad ku dartay ku bedeshay halkaad ka odhan lahayd ururkana reer hebel baa leh kana reer hebel baa leh ayun baad magac kale af ingiriisi iyo saddex eray ka kooban aad u bixisay laakiin waxaynu u baahanay inaynu bedelna marka waa ideology-ga iyo mabaadi'da la rumaysan yahay iyo inaynu dadkan islaax ka dhex raadino iyo inaynu cadaalad raadino
haddaynu se iyada dib ugu celinana 4.5 iyo 7.5 ku qaybsada kuma waxba kuma dhalanayaan. haddaynu dhahan dimuqraadiyad baa ee isdoorta one man one vote waxba isma bedelayaan, waayo ideologigii ka horreeyay waxa kani ayaa goobta ka maqan. saa daraaddeed warkayga koobani wuxuu yahay ummadnimadu waa dad qiyaadad wadaaga, sharci iyo maamul wadaaga, caqaa'id iyo afkaar iyo mabaadi' wadaaga, ummad noqda, intaa kadibna luqo wadaaga. innagu intan qaybo ka mida waa wadaagnaa, laakiin practical maaha, ma hirgelino. si ay luqada waa wadaagnaa, midabka waa wadaagnaa, dhul waa wadaagnaa, laakiin mabaadi' aynu wadaagnaa ma taalo. islaamnimada inta salaada iyo cibaadaadka iyo ku saabsan baynu ka wadaagnaa. cadaaladda dee inanka reer hebel uma dhigma baynu taaganay, ama kii 5 ka soo dilay dabada intaad marisaabad waxoogaa ma qaadanaysaan, magaanu idin siinaynaaye. cadaaladi ma jirto. idan ka mabda ahaan uma haysano. marka waxaan leeyahay waa inaynu waxa kan mabaadi' ka dhignaa oo dadka gaadhsiinaa. waana wax fudud in Soomaaliya problemkeedu waxaan rumaysnay ummadaha ugu problem yar inaynu nahay, ummadaha ugu problem yar, laakiin waxaynu nahay ummadaha ugu jahli badan sida wax loo xalilo. solutionka waxa la yidhaahdo ayaynu ka indhala'nay. daageenna waynu markaynu soo nimaadno calaacalka baynu badinaa, wixii dhacay baynu ka warranaa, waxaan baa dhacay, nin waliba intuu ogaa buu sheegaa, markaa meel baaba'sanoo dunsan baynu ka dhignaa. war dunida inaga problem badan ee mushkiladeenna xalkeedii un baynu farta saari kari la'nay, ama ciddii u cuntamaysay inay xallishaabaan weli u gacan qaadeen ama se u dhalanin. waxaan leeyahay markaa kusoo koobaya, ma jeclina warka idinku badiyo. tacasubka qabaliga ah dowladnimo kuma dhismi karto, waana taftiit wax keenayo bulshada burburinaya. cagsiga dowladnimo aynu u baahanayna waa inaynu mabaadi' iyo qiyaado midaysan samayn karnaa. taasina waa mabaadi'da ka horeysa qiyaadada. markaynu mabda' qaadanno ee dadku uu rumeeyo ee si dhaba u qaato inaynu qiyaado helnaa, asaaliibta qiyaado loo soo saaraa waa wax fudud, waana aala la samayn karo. وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.